runaahantii Tawakkal Academy waa akademiye shaqaysa weeye ardaydeeda waxaan u sheegayaa signalkii lacag ayaanu ka dhignay maadaama aan signalka lacag ka dhignay suuqa maalmihii ugu dambeysay ahay jimcihii iyo khamiistii aad ayaa looga faa'iideystay sidaa darteed Tawakkal Academy waxa ka shaqeeya dad badan lacagahaasna dadkaas shaqaalaha ayaa lagu kala dabiraa laakiin waxbarashada Tawakkal Academy waa free waxaan rabnaa arday badan inaan soo saarno ardada aan soo saarayna waxaan rabnaa suuqa siraha suuqa forex inaanu barno waxa aan idin barayno waa sirta suuqa forex aad kaga shaqaysan lahaydeen kana samayn lahaydeen lacag idinku filan noloshiina kuna tiina maalinlaha iyo tiina mustaqbalkaaba waxaanu sharaxaynaa ardadu naga dalbadeen oo naga codsadeen reversal patterns-ka baanu sharaxaynaa waan soo guud ahaan baynu kormaraynaa insha Allah bismillaah karim 10ka zoom-ka baad ugu tagi doontaan haddii Ilaahay idan ka dhigo talaadada ah marka inaan dul marno ayaan rabaa reversal patterns-ka suuqa soo celiya gadaal u soo celiya weeye suuqan aad u jeedaan double top baa la yiraahdaa double top marka ardaydu wax badan bay soo weydiiyeen waxaan igu dhaheen macallin intriga aanu ka galayno ayaan garan weynaa marmarka qaar meeshaan ka galayno macallin si fiican noogu bayaani marka suuq walba waad ku arkaysaa double top kan maalintii dhawaato suuq ugu dambeeyay inuu kaga dharagnayna wuxuu ahaa cat CHF suuqan yuugisa buu ahaa waana kan markaynu ka dhagaynay waa ka double top ka halkaasaynu ka galnay meeshan waa neckline-kii weeye waana kan waa halkaa waa meeshaynu ka galnay intaynu ka faa'iideysanayna ilaa intaanay ahay ardadoo dhan waa wada joogtay si fiican lacag fiican bay maalinta ka qabteen okay double top kan markaad joogtid oo aad aragtid suuqa saa u aragtid uu ka yahay suuq walbana waa uu ku jiraa time walbana waad ka helaysaa marka halka aynu joogno usha marka aanu aragno impulsive-ka oo corruption-ka impulsive-ka soo galo oo aad aragtid meesha neckline-ka uu samaystay ayaa intrigaaga waxaad dhiganaysaa halka usha aad u jeedaan ayaad halkaas saarsanaysaa meesha uu iskaga yimi ayaa intrigaaga ilaa intaanad ka faa'iideysanaysaa oo seel ahaana target goalkaaguna waa halkaa okay ka waa isla fahanay 10ka dambe isniinta insha Allah baynu si fiican isagana ugu sii sharaxaynaa okay head and shoulder kan laba garab iyo madax isagana intriga aad ka gelisid waa halkaa suuq walbana uu ku jiraa halka ayaa ka galaysaa intrigaaga waa halkaa inuu ahaado stop loss kaagana intrigaaga ayaa wax yar ka kormarinaysaa target goalkaaguna waa halkaa haddaad doontid halkaa waa keensan kartaa wuu tagayaa laakiin maxaaba halkaa ka qaado TB1 kaaga kadibna daba soco TB2 kaagana halkaan ka qaado intrigaaga soo dhaweyso halkaan keenso stop loss kaaga soo qaado halkaan keenso kadibna iska daba soco meeshaan stop loss ka keenso intrigina halkaan uu suuqa ku maraya iska daba socoba okay kaasna waynu isla garanay waana suuq badana head and shoulder kor buu ka dhacaa double top kuna kor buu ka dhacaa double top ka waa kan double bottom ka ayay mataana yihiin oo isaguna suuq waxa weeye kor ku soo socday haddana suuq hoos buu ka yimi sel ahaan buu soo dhaqaaqay impulsive-kaas uu samaystay kadibna waa kan meesha aad ka gali lahayd iyo isagana intrigiisi kadibna suuqaana bay buu ku siiyay bay ahaan baad uga faa'iideysanaysaa target-kaaguna waa ka waxaadna u dhiganaysaa halkaa markaad joogtid Allahu musta'an halkaa markaad joogtid baad waxaad u samaysanaysaa TB1 iyo TB2 TB1 ka markuu kuugu dhaco TB2 gaaga u gudbaysaa kaasna waa isla fahanay labadan suuq way wada socdaan okay head and shoulder-na waa isla fahanay invest head and shoulder-ka isagana waa suuqa hoos buu ka dhacaa kan kor buu ka dhacaa kana hoos buu ka dhacaa suuq waxa weeye impulsive oo kor ka yimi oo hoos ka yimi oo u socday hoos halka markuu marayana neckline-kiina waa kaaha inoo soo qabo halkaan inoo dhig neckline-kiina waa kan calaamadan inoo soo qabo halkaan inoo saar barta uu iskaga yimi labada garab iyo madaxu iskaga yimi ayaa isagana ka galaysaa intrigaagina waa ka target-kaagina waa ka isagana stop loss-kaagana halkaas aad dhiganaysaa okay niisin wejigan ayaanu isaguna sharaxaynaa suuqan wuxuu ahaa suuqaani bay buu ahaa impulsive-kaas uu samaystay corruption-kaanu galay trend line-kaaga ayaa saarsatay intrigaaga halkaas aad dhiganaysaa stop loss-kaagana halkaas aad dhiganaysaa target-kaagina waa ka waynu fahnay somaa intriga aynu ka galayno okay villain wejigan sidoo kale isagana intriga ka geliso halka ha ahaado markuu lugta soo samaysto
impulsive ka soo baxo target goalkaagana waa ka TB1 iyo TB2 baa u samaysanaysaa stop loss-kaagana halkaas aad dhiganaysaa intrigaaga ayaa lugtan meesha halkaana ku yaala trend line-kaagu lugta gadaashiisa ayaa dhiganaysaa waa iska cun weeye okay waxayra waxaan dul istaagaynaa intaan isagoo faahfaahsan waxaad ugu tagi doontaan insha Allah bismillaah alkarim casharka zoom-ka ah aynu qaadan doono aynu mar walbana qaadano isniinta iyo talaadada labadaba waynu qaadanaa talaadada ardada soo gashay iyo ardada isniinta soo gashaba okay waxayr waxaan rabnaa inaan dul istaagno lacagaha badana ardada isoo weydiiyeen ee lacagaha isku jihada ah iyo lacagaha kala jihada ah okay waxaynu ka hormarinaynaa lacagaha isku jihada ah iyo sida aad ku garan lahaydeen iyo qaabka ku fahmi lahaydeen okay lacagtan baynu hal mar afaan eegaynaa lacagaha isku jihada ah okay AUD USD lacagtaas ah halka ku dhufso AUD USD okay meesha aad aragtaan ee plus ku qoran yahay ayaad ku dhufsanaysaa lacagtii kale iyadana la jihada ahayd ayaad raadinaysaa marka NZD USD ayaad ku qoranaysaa ha ilaawinna pluska kadibna halkaas ayaad ku qoranaysaa waatan iyadoo oo line ah okay labadan lacagood isku fiiri bal si fiican indhihiina kala fura labadan lacagood isku fiiri si fiican waa inaan indhihiina u kala furtaan lacagtan aad u jeedaan waa NZD USD okay AUD USD na waatan soo ma aragtid impulsive bay samaysatay tanna impulsive bay samaysatay waa isku jooh lacagahan okay taas way la fahanteen okay waxaan u tagaynaa AUD CHF baynu u tagaynaa iyadana AUD CHF good AUD CHF tan ina ka qaad awal bay hore inuu ku taalay NZD USD ina ka qaad AUD USD bay isku jiha aadaan okay tan baynu eegaynaa AUD CHF okay meeshani baynu tagaynaa pluskaas aad ku dhufanaysaa kadibna lacagta kale ee isku jihada aadayaan baad eegaysaa iyadana AUD CHF NZD baad leedahay NZD CHF waa isku jiha aadaan iyaguna waana ku khasban yihiin inay isku jiha aadaan okay waxaan ku khaldoominina waxyaabo aniga ii yaala okay soo ma aragtaan trailernadan aniga ii yaala ayaan idinka qaadayaa okay soo ma aragtaan suuqan soo ma aragtid impulsive haddana impulsive kale oo corruption ah halkanna fiiri NZD CHF impulsive haddana impulsive kale oo corruption ah day afkan yarka fiiri ee bayga ah halkan day waa af iyaduna bay ah waa isku joho lacagahaasu waana saa oo kala barataan iyagana insha Allah bismillaah alkarim 10 baanu ku qaadan doonaa 10 soo socda hadii ilaahay idin ka dhigo waxaanu kale u sheegaynaa Tawakkal Academy waxaanu free uga dhignay ayaan la soo weydiiyay arday badan la soo weydiiyeen waxa keenaya 30 arday oo ardadaas ka mid ah ayaa waxay dhaheen macallin arrimahooda khaaska iyo arrimo ay nagala hadleen ayaa jirta dhalinyartu ma shaqayso qaar baa lacag la'aan qaar baan waxba haysan baahiyahooda aad u badan yihiin qaar baan guryahooda joogin qaar baan jaamacadaha iska bixin karin marka dhalinyartaas oo dhan oo baahiyahooda noo soo bandhigtay cilmigan ilaahayna baray rabbi subxaanahu wa ta'aala noo fududeeyay haddii aanu lacag ka qaadno ceeb bay naga noqotay lacagta suuqan waxaa nagaga filan siraha suuqan anagoo hayna oo ka shaqaysanayna suuqan lacagtiisa aan ka shaqaysanayna waa nagu filan qof Soomaaliya oo walaalkaya lacag aan ka qaadnay nama baahi tirayso anaga signaliska xagiisa isagana waxa loo iibiyay caalamka oo dhan ayuu signalku iib ka yahay way juhdi baa ku baxaya waqti ayaa ku baxaya signaliska qofka ay siinaysa signaliska uu ku faa'iidaya wuxuuna ka qaadanaya lacag aad u fara badan okay bishii 30 euro weeye labadii bilood waa 60 euro saddexdii biloodna waa 90 euro hal maalin kaliya ayaa waxa ku soo galay 300 euro TB-ga aan ku siinay iyo signalka aan ku siinay TB-ga toos kuugu dhacaya insha Allah bismillaah alkarim ardana waxaan bari doonaa hadii ilaahay ka dhigo waqtigan waa insha Allah bismillaah alkarim waan wada qaadan doonaa waxaan ku baraynaa siraha suuqan laga shaqaysto oo aad ku ciil baxaysa arday badan oo yiri waan ciishoonay ayaa jira markay ay ku soo biireen akademiyadana yiri waan ciil baxnay insha Allah heegan waxaan ugu jirnaa Tawakkal Academy haddaanu nahay inaanu idin ciil saarno qof walba oo Soomaaliyeed ee walaalkaya ah dadka Soomaaliyeed oo dad wada dhashay waxaan diyaar u nahay inaanu aqoontayada iyo sirta suuqan aan free ku barno
oo wax lacag aan ka qaadanayn. waxaa naga badan ducadiina walaalayaal, iyo waxaa naga badan, waxaa la yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofka walaalkaaya haddii aad arrimihiisa aad u xalisid, adigana maalin aad dhiban tahay ayaa arrimahaaga ilaahay kuu xalinayaa. adduunka ama joog ama aakhira joog, maalin un ayaa arrimahaaga ilaahay kuu xalinayaa. marka walaalahayga arrimihiina waxaanu jecelnahay iyo baahida aad suuqaan u qabtaan inaan idinka xaqabtirno. diyaar baan u nahay, heegan baan u nahay. Tawakkal Academy waa akademiyadiinni, idinkuna waxaad tihiin faamilkayagii baad tihiin. insha allah bismillahi alkariim waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idinka ka dhigo, linkiga hoos ayaan soo dhigi doonaa telegramka. haddii ilaahay idinka ka dhigo halkaas ayaadna kala socon doontaan, ardada kale nagu soo biiri doontana insha allah. qayb waxaa jirta whatsappka ah oo isku diiwaangelina, halkaas iska diiwaangelinaysaan. isdiiwaangelintaasu lacag ma aha, akademiyaduna bilaash ayaan ku baraynaa. isdiiwaangelintu waxa weeye arday walba inaan la soconno xaaladiisa iyo xogtiisa, waayo dad family baynu nahay. sidaas ayay noo ahaanaysaa insha allah bismillahi alkariim. waxaan isugu soo noqon doonaa haddii ilaahay idinka ka dhigo, naftana ilaahay inoo saamaxo, xilliga suumka la qaadan doono talaadada iyo isniinta. insha allah waan idin salaamayaa walaalayaal, ilaahay idinka raali noqdo. waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado suuban.